بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. waxaan halkan ka salaamayaa dhammaan Soomaali maxamed meel walba joogaan. Waxaa ka inooga sii socon doona insha Allah gabayadii diiniga ahaa ee taxanaha. Waxaa gabayga maanta la yiraahdaa dunidan doorsoontay, wuxuuna ka hadlayaa siday dunidu isku bedeshay ee fitnadu u badatay. Wuxuuna ku bilaabmayaa insha Allah sidan: dunidan doorsoontee daalinku hogaansho, dunidan intii damiirka lahayd la dabar jaro, dunidan doc walba batay dagaalku, dunidan dadkii haldoorka ahaa la dilo, dunidan qabrigu buux dhaafee aakhiro la isku diro, dunidan diihaalka iyo gaajadu digada noqotay, dunidan xumaan lagu duro samaantee dulmiga dhegta la isku daro, dunidan la iswada dooxee dhiigu u daato, dunidan diintii la dhayarsadee dacalka loo dhaafay, dunidan dirodirooluhu mindida daabka u hayo, dunidan nolosha la darsee la nacay geerida, dunidan wakhtigii dahabka ahaa la doorsho, dunidan baahidu dihatee diinaarku cirka isku shareeray, dunidan danyartu u daranee dabaqada hoose aan la dayin, dunidan saboolka la dayrinee intii darajada sare uun u diyaara. daa'imow adaa ducada maqla, noo dulqaada yaa rabbi, dunuubtana naga dhaaf. waad mahadsantiin dhammaantiin. waxaan leeyahay aan khayrka ku dadaalo, waa aakhir samane insha Allah walaalayaal. wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.